السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودو هذا صاحب يال برتنا قد دعونا إنسان وردا ماله وبرنامج كلو قيمة بدل ما أنت أنك كهل الدورنا سيدا يقرب جوكته وأركان دلك يسامين كل يهين دلك إنه هو وحاب برنامج مرتي يبغى أنا سلك هذا ديك الدورنا صاحب كي عبد الرحيم محمد داهر عبد الرحيم سودو مركلته أباني أدي هذا وما سنتهاي مركلة وفرح سنة هاي إن أنا كسر مخدو جنال كداي ماله وسودو هاي هذا وما سنتهاي haddaan hore ugu galno su'aasha ugu horeysa barnaamijka Cabdiraxmaan waxay ku leedahay sidee ayay qurbo joogta Soomaaliyeed ula socdaan xaaladaha dalka faham intee leeg ayay ka haystaan أباني قرب joogta runtii markay wadanka ka tageen yani ii sheegay waxaan dhihi karnaa si dhow bay ula socdaan xaaladda wadanka maanta dunida waxaan dhihi karnaa waa hal tuulo dunida waxay noqotay hal tuulo globalization marka wax kasta wadanka ka dhaca runtii qurbo joogta way la socdaan si dhaweyna ula socdaan halka shay qurbo joogta ay kaga duwan yihiin dadka daljooga waxa waaye qurbo joogta waxay fursad u heleen in qoomiyado kala duwan ay dhaxgalaan oo ay la noolaadaan qurbo joogta waxay arkeen qoomiyado kala duwan kala lahjad ah kala diin ah kala wax kasta ku kala duwan oo haddana si nabad ah ixtiraam ku wada nool marka waxay isweydiinayaan يعني جيل كان صومالي جنسي كان صومالي أو إيش وحكس وذاك اللقة دين نسب وحكس وذاك ما هي لهشين لأيهن ما هي اسكو أقولان لأيهن وحيا بقى اسكو ويديان واي حالة ودن كويلة السعودان مركز سجود أهان إلهي سبحانه وتعالى ودن كان وحان ويديننا إنه النبض يدولة سلقته إنه إلهي ودن كان أوكينه سيدي إيش قرب جوجتي ودن كأوصولتان عن دولة يبرواقان ودن ولا دمانتين Cabdiraxmaan waxaa jira qurbo joog badan oo ka kala maartay qurbo joog badan oo ka soo noqotay gudaha Cabdiraxmaan waxaa jira dad badan Soomaaliyeed oo banaanka ku noolaa oo dalka ku soo noqday maxaa is leedahay way ku soo kordhiyeen dalka hooyo waa su'aal aad u fiican runtii qurbo joogta waxyaabo badan bay wadanka ku soo kula soo laabteen ama ku soo kordhiyeen aqoon maskax khibrad maalgashi waxyaabahaas dhan bay wadankii ay kula soo laabteen markii ay wadamaha caalamiga Mareykan Yurub meelahaas ay tageen waxay fursad u heleen in jaamacado caalami ah ay wax ka bartaan institution caalami ah ay u shaqeeyaan khibrad badan ay kororsadaan marka qurbo joogta qaarkood wadankii dib ugu soo laabteen dawladihii wadanka soo maray insaan wada ognahay xilal muhiim ah ka qabteen ilaa heer madaxweyne ay gaareen waa ognahay madaxdii wadanka soo martay qaarkood waxaan qurbo joog marka khibradii iyo aqoontii iyo maalgashigii ay qurbo joogta ay qurbaha meelahaas ay ka soo guureen waxaan dhihi karnaa wadanka dib ay ugu soo celiyeen Cabdiraxmaan fursad intee leeg ayaa u bannaan dadka dibadda ka soo noqonaya ee dalka raba inay ku noolaadaan fursad intee leeg ayaa dalkan taala oo ay kaga faa'iideysan karaan abwaane sidaas wadanka Soomaaliya lagu tilmaamo waa wadan khayraad ilaahay ku maneystayna nasiib daro maskaxdii ka faa'iideysan lahayd weli ay maqan tahay fursadaha wadanka banaan waxaan dhihi karaa xoogaa waa iska yani kooban yihiin dhanka waxaa loo badan yahay ganacsiga qurbo joogta badana waxyaabaha ay sameeyeen waxa inay hoteelo ay furaan maqaahi ay furaan kafteeri ay furaan dhankaas ganacsiga ay u badan yihiin sababta meelaha kale maalgashi loogu sameyn waayo waxa wadanka warshado ma laha dawladii dhexe markay burburtay warshadii wadankan way burbureen hadda waxaad maqlaysaa warshadii mareeray warshadii dharka warshadii qasabka warshadii kida marka hadii warshadii wili ay shaqeyn lahaayeen maalgashigana ii sheegay uu badnaan lahaa maadaama wadankii warshadii meesha ay ka baxeen marka ilihii maalgashiga aad bay u soo koobmeen marka waxay u badan yihiin aan dhihi karnaa 90% ganacsiga meelahaas ay u badan yihiin fursado ugu weyn dhanka ganacsiga Cabdiraxmaan haba yaraatee waxaa jira qoysas maaragtay ka soo noqday dibadda ee rabay inay dalka degaan deetana dib u noqday oo ku noqday meesha ay ka imaadeen waa maxay caqabadaha waaweyn ee heesta dadka dibadda ka soo noqonaya ee raba inay dalkan ku noolaadaan caqabadaha heesta maxaa kamid ah qurbo joogta raba inay wadanka ugu soo laabtaan sabab badan bay rabaan inay wadanka ugu soo laabtaan qaarkood waxay rabaan inay wadanka maalgashi ay ku sameystaan kuwa raba inay wadanka maalgashaan caqabada ugu weyn haysto waxa waa ee kala kulmaan wadanka waxa loo yaqaan monopoly waa erey ingiriiso waxa laga wadaa in dad ama shirkado ay xirtaan waxyaabaha ii sheegay sida ganacsiga ama sektorada rabaan inay qurbo joogta ay maalgashaan waxaa jiro monopoly oo wadanka ka jiro oo rag ama shirkado ay u xiran yihiin marka taasoo yani caqabad ku ah in dadkii wadanka ay maalgashtaan
sideedaba monopoligan runtii adduunyada aad baa loogu dagaalamaa ma fiicna waa ii sheegay kaliya dadka qurbo joogta caqabad kuma aha hataa dadka wadanka deganna caqabad ay ku tahay haddii fiildiga saaxadda la ii sheegay laga dhigo waasac ee dadka badan ay maalgashi ay samaystaan waxaa imaanaysa competitionka dadka faa'iido ugu jiro oo qof kasto oo saaxadaas ku jiro isku daya in adeeg tayo leh bulshada uu gaarsiiyo ii taasoo faa'iido ah bulshada marka su'aashaas hadaa qaybtaasi aan soo koobo maalgashiga caqabada hortaagan waxa waaye waxaan loo yaqaan monopoliga rag qaar ama shirkado qaar meesha ay xirteen qaarkood waxay rabaan ilmahooda inay dib u soo celiyaan wadanka ay ku noolaadaan wadanka ii sheegay markay wadanka ay ku soo laabteen xaaladaha wadanka ay qiimeeyeen dhanka amniga fursadaha kala jiro dhanka waxbarashada weli waxay aaminsan yihiin yani wadanka weli inuusan gaarsineyn meeshii la rabay oo ilmahooda ay ku soo celin karaan marka caqabadaasaan dhihin karaa ma jiraan wax maaragtay la taaban karo oo wanaaga oo qurbojoogta u leeyihiin bulshada Soomaaliyeed aad iyo aad aan hal shay runtii positive ah maanta aan isleeyahay qurbojoogta way ku mudan yihiin in loo aqoonsado ama looga mahadceliyo ama looga garwaaqsado waxa waaye runtii qurbojoogta bil kasta sanad kasta wadankii waxay u soo direen malaayiin lacag ah maanta ummadda Soomaaliyeed ee ku nool wadanka 50% waxaan isleeyahay noloshooda Ilaahay ka sokow risaqi Ilaahay baa baxshay waxay ku tiirsan tahay aaciladooda qaraabadooda ehelkooda qurbaha jiro waxay soo diraan malaayiin bay runtii u soo diraan bishii u soo direen eheladooda wadanka jooga maalin xitaa waxa maqlay wasiirka maaliyadda dawladda federaalka arintaas runtii uu ka hadlay uu ku amaanay qurbo joogta xabaaladaha Soomaaliyeed waxa lagu tilmaamaa hooyada ganacsiga runtii waxyaabo badan qurbo joogta lacagaas ay soo diraan ganacsi ay sameeyeen horumar ay ku sameeyeen marka maadaama ay support gareeyaan ay taakulayaan eheladooda wadanka jooga qurbo joogta waxaan dhihin karaa arintaas runtii waxay ku mudan yihiin in loo aqoonsado loogana mahadceliyo fadrixiin lacagaas ay soo diraan qurbo joogta oo ku jirtaa waa seef loo aflay dadka dhaxaan saasoo kale waxay qayb ka tahay furinta dagaalada oo haddii shaqaaqa ay dhacdaa waxaa maaragtay qaaraanka laga keenaa banaanka hubka la isku laayay waxaa gaday dadkii dibadda aaday taas ma qirsantihiin runtii waa qirsannahay waa aafad jirto runtii loo baahan yahay dadka culamaa diinka dadka waxgaradka qurbaha ku joogan arintaasi runtii ay ka hadlaan ay bulshada laga wacyigeliyo maalin dhawaan wareysiga aan ku sheegay Soomaalida hal cudur haysta waa cudurka qabiilka iyo qabyaaladda kuwii xitaa qurbaha aadeen xitaa qaab qabiil bay isugu xiran yihiin marka Soomaalida bahalkan qabiilka dil soo sheego xidid gooniya dhaqaaqo marka wadankii maanta hadii xasarad ay dhacdo ama laba qabiil isqabato qabiiladoodii xagga joogay baa loo qeyl dhaansanayaa lacag bay soo aroorinayaan wadanku soo dhiibana hubkaas ku iibi qabiil hebel ku dhufo sidaas dibkaas way jirtaa hadda tusaale ahaan sanadii hadda la soo dhaafay xasaradan hadda ka dhex taagan walaalaheena Soomaaliyeed ee ku nool gobolada waqooyi runtii anagu waxaan u aaminsanahay inay yihiin dad walaalaheena Soomaaliyeed ee muslimiin ah gumeysigii wadanka Soomaaliya Ingiriiska Itoobiya dhul u xariiqay isku dagaalsan magacyada sheegta magacyada raban ha sheegtaan SSC iyo Soomaaliya waxay rabtaa sheegtaano laakiin waa dad Soomaaliyeed oo muslimiin ah marka xasradii last year ka dhex bilaabatay ii sheegay dadkoodii xagga qurbaha ku noolaadeen lacag badan bay soo arooriyeen oo qof baa dhinaciisa u soo dhiibanayay oo dagaalka lagu horinayay arintaasi way jirtaa waa nasiib daro waxayna yani la xiriirtaa qabyaaladda Soomaaliya aafisay kii dal jooga iyo kii dibad joogaba qabiilkan una aafiyay marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala Soomaali qalbigeeda qabiilkan iyo qabyaaladan haga yani ii sheegay masaxo laakiin arintaasi way jirtaa waa aafad jirta waxaan rajaynayaa in culamaa diinka iyo waxgaradka arintaasi wax laga qabto Abdiraxiin waxa la ku eedeeyaa dadka dalka ku nool waxaan ku eedeeyaa in fursadii dalka yaalay iyo yaraa aad qaadateen mise nolosha aad ku qaaliyeyseen oo kiradii guriga iyo maciishadii maartay asar u qaadeen taas waxa kaga jawaabaysaa abaane arintaasi runtii waa maqlaa waxaan dhihi karaa arintaasi gar ma aha waa runtii arintaasi mana saxsana qurbo joogta ayaga wadankan malaayiin lacag u soo diro san hadaan soo sheegay ayaga reerahooda taakulay ayaga wadanka investment soo geliya marka in la dhaho idinka fursadaha qaata waxaan is leeyahay isheed arintaasi gar ma aha teeda kale qurbo joogta oo dawladda xilal ka qabto oo wadankii xilal dawladda ku biira
qurbo joogta ayagana ajaanib ma aha, waa dad Soomaali ah xaq u leh in wadankooda ay kusoo laabtaan, wadankoodii ay wax isbedel ay kusoo kordhiyaan. marka in sidii ajnabi camal loo arko oo xilalkii la dhaho dadka ayaga waxay qaatay arrintaasi ma saxsana. tan in wixii ay qaaliyeeyeen runtii kaliya qurbo joogle ma ahane ummadda Soomaaliyeed qowmiyadaha kale waxay nagu eedeeyaan hadda wadamada kale hadda tagtid sida Ethiopia, Kenya meelahaas aad tagtid waxay ku dhahayaan Soomaalida markay noo imaadeen baa guryihii qaaliyoobeen, maciishadii ay qaaliyooday. arrintaas waxaan dhihi karaa ummadaha kale baa nagu eedeyso haddaan nahay Soomaali meel kasta aan tagno xooga lacag ma aan la tagnaayo, marka in maciishadii guryaha aan qaaliyeeyna taas kaliya qurbo joog ma ahane eed anagana noo wada taasho loo baahan in la daraaseeyo lagana jawaabo. هذا ما سنتهي حسوا قارني جوجبي ابن البرنامج وحن كسر جوجبنا سؤال هذا waxaan ognahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee dibadda ku nool markay ikhwaan ay guursadaan dalka ay ku soo noqdaan ay ka guursadaan qabla iyo wiilalba waa maxay wax maanacaya ama u diidaya gabdhaha iyo wiilasha banaanka wada jooga in iyaga isguursadaan. Abana runtii su'aashan waa su'aal sensitive ah, runtii u baahan ayada mowduuc gooni in laga dhigo oo runtii si fiican loo falanqeeyo. haddaan si kooban su'aashaasi aan ugu jawaabo, haddaan nahay muslimiin daljoog ama qurbo joogba Ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu noo soo dejiyay diin dhammaystiran oo ka hadlaysa nolosheena dhinac kasta ha ahaato. marka ayadoo taas la fiirinayo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala usrada muslimka ah wuxuu u soo dejiyay qawaaniin lagu dhaqo usrada muslimka ah. usradu waxay ka kooban tahay hooyo iyo aabbo iyo caruur. marka Ilaahay wuxuu u qeexay aabaha isha xuquuq laga rabo, hooyadana xuquuq laga rabo. xuquuqu zawjeen waxa la dhaho waa dabcan waad maqasheen dadka way og yihiin. marka markii qurbaha la tagay lilasaf qurbaha waxa ka jira waxa la dhaho international law, qawaaniinta caalamiga kuwaas oo ka hor imaanayo diinta Islaamka. marka lilasaf dad ka mid ah qurbo joogta waxay qaateen ama waxaan dhihi karnaa xoogaa rabaan inay dabaqaan waxyaabaha international law ah, in ragga iyo dumarka isku mid yihiin, hooyada aabaha guriga loo wada siman yahay, isheeday labadoo shaqo la wada aadayo oo kirada la isku darsanaa nolol noocaas ah oo xoogaa yar si u khilaafsan qawaaniinta Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u dejiyay in lagu dhaqo usrada. marka dad badan siba wiilasha runtii ma rabaan in qawaaniintaas guryahooda lagu dhaqo, waxay jecel yihiin Ilaahay subxaanahu wa ta'aala qawaaniinta u dejiyay in usrada lagu dhaqo iyo dhaqankeena soo banaan Soomaaliyeed in gurigooda lagu dhaqo. waxay doorbidayaan inay wadanka ay ku soo laabtaan gabar wadankii ku barbaartay taqaana isha diinta Islaamka ee qawaaniinta usrada waxay Islaamku ka dhahay. marka inay meeshan ay ka guursan nolosha qaabkaas ay u noolaadaan. marka arinta sababtaas baa ugu weyn aan isleeyahay. marka waxaan runtii haddaan muslimiin nahay dal iyo dibadba meel kasta oo aan joogno waxa fiican diinteena inaan ku dhegnaano. kaliya diinta ma marka wadanka joogtida inaad dabiqaysid markaad meelaha kale tagtid waxyaabo kale iska gacmaysanaysid ma aha. meel kasta oo joogtid waxa diinta Islaamka inay manhaj ay ku noqoto waa arin muhiim ah. marka dadka culimada diinka runtii way ka hadlaan, ummadda waa laga wacyigeliyaa. marka insha Allah sababtaas aan ku sheegi lahaa. ما شاء الله aad ayaan waasantahay barnaamijkeena maanta halkaas ayaan kusoo gabagabeynayna tani intaan dib u kulmi doono midkan mid lamid ah sidaas inoo geliyo aad ma saddex aad ma sabana jazakallahu khair aad ma